Ukraine ayaa ka fiirsanaysa inay qaado tallaabooyin ka dhan ah dowladda Israa'iil si ay uga argoosato inay bixin weyday waxa ay ku sheegeen taageero ku filan sida uu qorayo wargeyska Kiev Post isagoo soo xiganaya ila amni oo aan la magacaabin. Joornaalkan qurba joogga ah ee ka soo jeeda dalka Ukraine kuna hadla luqadda Ingiriiska ayaa sheegay in tallaabooyinka laga fikirayo in lagu dhaqaaqa ay ka mid tahay ka saaridda dowladda Israa'iil ee shirarka heerka sare ah ee ku saabsan Ukraine ee saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee Ramstein sabab la xiriira cabsi laga qabo in macluumaadka xasaasiga ah ee kulamadaasi looga hadlay ay u gudbiyaan dowladda Ruushka. Kiev Post oo soo xigata howlwadeen aan la magacaabin oo ka socda golaha amniga qaranka iyo difaaca qaranka ee Ukraine ayaa sheegay in mas'uuliyiinta Israa'iil waligood aysan bixinin caawimaadaba taas beddelkeedna waxa ay mar walba dhiibaan xogaha ka dhanka ah Ruushka iyo qorshayaasha dagaalka ee Ukraine ayuu sheegay. Sida laga soo xigtay warbaahinta, mas'uuliyiinta Kiev kuma faraxsana waxayna u arkaan dowladda Yuhuudda ficilada ay sameynayso kuwa aan saaxiibtimo ahayn oo ku wajahan Ukraine iyo in mowqifkoodu uu cadeynayo inay taageersan yihiin Ruushka fagaarayaasha caalamiga ah ee looga doodo taageerada la siiyo dowladda Ukraine. intaa waxaa dheer in howlwadeen ammaanka Ukraine ka mid ah oo aan la magacaabin uu u sheegay Kiev Post inay jirto khatar dhab ah oo ku aadan in macluumaadka lagu lafaguro kulamada xerada lagu magacaabo Ramstein ay u badan tahay inuu ku dhici doono qolka warqabadka ee dalka Ruushka. Dagaal aan waxba la iskula reeban ayaa dhex maray dalalka Ruushka iyo Ukraine iyadoo dalalka reer galbeedku ay taageero weyn u muujiyeen dalka Ukraine kaasi oo tilmaameen in lagu soo duulay iyagoo dhinaca kale cunaqabatayno waaweyn saaray dalka Ruushka iyo maalqabeennada u dhashay dalkaasi ee ku sugnaa daafaha caalamka. Ruushka ayaa caro xoogan ka muujiyay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Ukraine la doonayo in lagu daro ururka NATO ay ku midaysan yihiin dalalka sheegtay inay ugu awood badan yihiin caalamka taasi oo hadday dhici lahayd ay dowladda Ruushka u aragtay caqabad lagu bartilmaameedsan karo hoggaankiisa saanadiisa ciidan iyo weliba xogihiisa sirdoon maadaama xeerka NATO uu dhigayo inay xuduudda labada dal ee Ukraine iyo sidoo kale Ruushka ay ciidamadoodu fadhiisan ka samaysan karaan. Dowladda Ruushka ayaa aad uga feejigan mar walba khataraha uga imaan kara dalka Mareykanka oo dagaal siyaasadeed mid awood ciidan iyo sidoo kale ku dhaqaalaba uu kala dhaxeeyo taas beddelkeedna diidan ku soo dhawaanshaha dalkeeda. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa marar dhowr ku celceliyay in dalkiisu uusan aqbalaynin duminta reer galbeedka ayna ka difaacayaan waxay ugu yeereen cadow isu bahaystay duminta xukuumadda Moscow. dhinaca kale xogaha soo baxaya ee sheegaya in dowladda Israa'iil sameynayso dusinta wararka ammaanka ee dalka Ukraine ayaa keeni kara khilaaf soo kala dhex gara labada dowladood maadaama dowladda Yuhuudda ay si weyn uga dhex muuqato go'aanada dowladda Mareykanku ay qaadato. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Israa'iil ayaa mar hore sheegay inay jiraan wadamo reer Yurub oo aan diyaar u ahayn caawinta dalkiisa isagoo dhinaca kalena dalbaday in la kordhiyo saanada ciidan ee dalkiisa la siiyo si ay soo difaacaan dowladda Ruushka. ugu dambeyn lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka soo baxay ee u dhaxeeya dalka colaadu burburisay iyo sidoo kale Yuhuudda kuwaas oo labadooduba haysta taageerada dowladda Mareykanka balse waxaa la aaminsan yahay inay jiraan xogo sirdoon iyo sidoo kale kuwa qorshayaasha ammaanka ah ee dalka Ukraine inay gaaraan dowladda Ruushka balse aan la aqoonin cidda bixisa ilaa iyo haddana baaristeeda ay wadaan dalal dhowr ah oo la socda xaaladda dagaal ee u dhaxaysa dalalkan dariska ah ee Ruushka iyo sidoo kale Ukraine.